الكهور الدمي هي جوزها الدار داق الدحين فر سود الكهور الدمي هي جوزها الدار وريا داق الدحين فر سود ماركيلو مشاد استاك بجاج لها برتيس كحلي عبد وضع أما حيبت أسعر حائق قل حوغا إيتور هديك بوم 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 شرمارك عبد الناصر محمد شرما بوي boqorka reer muqdisho fanaanka kaliya raabarka kaliya ee magaalada muqdisho gilgilaya shaki kuma jiro inuu muqdisho gilgilay yahayna fanaan fankiisu la meel yahay Diamond Platnumz waaba haduusan ka sareyne waxa waay haddana waxa waay anoo aan dadni aqoon qofni aqoon astaan TV maxaa la yiraahdaa aan meelo badan oo soo maray cariiriya noqotay waa cariiriyan dareemo ma garatay oo xoogaa ma aragtay in waqtiga la isiin waayo maxaad kala socotaa arrin xanuun badan oo waqti iyo waayo kadib Sharma Boy uu ka sheekaynayo ciil lagu sameeyay fankiisa iyo hibadii uu lahaa loona diiday inuu soo bandhigo sanad ka hor ayay ahayd markii Sharma Boy dad badan barteen soona bilaabatay doonta hal abuur ee xidiga Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku soo bandhigi doono nolosha iyo taariikhda kooban ee faneed ee alfanaan Sharma Boy oo hal sano on fanka isaga oo ku jira la moodiyay 10 sano fanaan ku jiray magaciisa oo dhameystiran waa Sharmaarka Cabdi Naasir Maxamed Sharma Boy waxaana uu ku soo barbaaray magaalada Muqdisho oo sidoo kale dhinaca fankana uu waqti ku soo qaatay waa fanaan dhalinyaro ah oo dabayaaqadii sanadkii tagay si weyn baraha bulshada iyo fankaba ugu soo biiray waxaana saaxadda faneed iyo fanaaniinta noqdeen mid kamid ah xilli uu ku soo biiray fanaaniintii ugu waaweynaa waxaana saaxadda faneed ay heshay marqura fanaan mulaxan iyo abwaan intaba isaga isku ah alfanaan Sharma Boy ayaa inta badan ah fanaan heesihiisa isaga sameystaa soona qaada heesa dhalinyaradu jeclaystaan kuwaas oo marka aad magaalada Muqdisho dhex marayso arkayso kuwa ka daaran majaajyada kuwa ku jira TikTokyada iyo kuwa dadku inta badan mobilada ugu jira Sharma Boy ayaa ka sheekeynaya caqabado dhinaca fanka ah oo fanaankan soo wajahay intii uu fanka ku jiray kuwaas oo qaarkood u diiday heerka uu doonayay inuu maanta gaaro oo heerka hadda uu joogo Sharmaarka Cabdi Naasir Maxamed Sharma Boy inta la yaqaan ayaa yar balse inta taqaan ayaa badan fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy oo ah fanaan inta badan ay dadku dhalinyarada ah jeclaystaan ayaa ka dhigaysa in uu rumeeyay qayb kamid riyooyinkiisa inkastoo wali fanka uu rajo wanaagsan ka leeyahay alfanaan Sharma Boy waxa uu ka sheekaynayaa sida uu fanka ku soo galay fanaaniinta uu jeclaa heesahooda in uu qaado iyo sidoo kale qaarkood oo uu sheeko cajiib ah uga sheekaynayo waraysi uu siiyay waqti dambe uu mixi raadina ane waxa waay haddana waxa waay anoo aan dadni aqoon qofni aqoon astaan TV maxaa la yiraahdaa aan meelo badan oo soo maray cariiriya noqotay waa cariiriyan dareemo ma garatay oo xoogaa ma aragtay in waqtiga la isiin waayo way dhacday marka dib in ay soo xiriiraan gacan seere وانا جنالك كليو عن فريسانين تي في ها جنال نوليه يوتيوب نوليه و تي في كليو عن لو اركيني اما اي ربان اما ربن اما ان ربا اما ان ربن لكن waxa xaqiiq ah oo aan si bandhigaabo waliga in loo arkin waa asiga la qofka fiyus ka helay markaas meesha talent ku soo bandhiga waana ma garanayo waxa jirto hees ani aan sameeyay oo astaan TV aan u sameeyay hatta aan fanaan hees qaadin wariga aan qaadan heestaasaan sameeyay dhalinyaro badan oo astaan TV la shaqeyso dhalinyaro badan oo TV-gaas ka shaqeeyaan la kaashade warnimayo hal igey TV-ga waxaan rabaa inaan soo bandhigo waliba TV-ga aan amaano ma garatay sax ma ogi qarash la'aan ma jirta markaas TV-ga xoogaa ma ku daadsanay ya liigu adkii adani
waxaa la lahay adi waa ma aqaan qofku waa la qofta ninka ragga lama yeeso weligaa ninka ragga lama yeeso yasma mee ka ahayd wariyaal ma u tagin baani wariyaal lama kulmo way soo wicin wariyaasha meesha kadib bay soo wicin markay hadeertaan Sharma Boy ee dadkii bixiya shacabka markay ay bixiyeen ay soo wicin laakiin kor ana u baana ilaan ayay imaka siin awoobin imaka siin waxa waaye waa lixmi meesna alfeen umadu way wada ogaatay adamigu wada amaanay astaan TV alla ilays bay dalkeena keentay isku soo noqod wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan wali waxaad daawanaysaan bandhiga production haddaba haddii aad nagu cusubtahay YouTube-kana subscribe inoo saar YouTube-ka bartaana iskale marka maalin walba aniga ma noo fadhiisayso wax qaad bari wax qaad todobada qofood oo ka mid yahay maalin walba dood maalin dood kuma jiri karnaa waxa iga su'aala maalin daana labadiina dood ما يبحث فهم بالله معجزتان إياك كورك سحاو ما يجوك والله سحاو جوك نكان سحاو ملا إنه حب معلوم بس على يوتيوب labadiina malidin ما يمرك فيري مرك اللي بالله باي مغالطة وأزل دوبي جرنا موجودو ما المانو كريس دوبي بالله باي كوكلا وكان صدق أزل دوبي جرنا كوكلا وضع نيم دافن نيم سبسكرايب سبسكرايب أنا قدرت تبغى سبسكرايب يا رأيك labada dood ma waa aniga dadka waa hadii halkan aad soo هذا النيوم هو قاعد أديك حتى النيوم Sharma Boy oo markii uu fanka soo galiyay ka doona sida hadda uu yahay ayaa ugu dambeyn ka mid noqday shakhsiyaadka guuleystay bal ila daawo Sharma Boy sida uu uga sheekeynayo qaabka uu fanka ku soo galay oo ah qaab uusan islahayn heerka maanta aad joogto aad gaari doontaa waa asiga qofka fiyuus ka helay markaas meesha talent ku soo bandhiga aniga ma garanayo waxa jirto hees aniga aan sameeyay oo astaan TV aan u sameeyay hatta aan fanaan hees qaadin wari aan qaadin heestaasaan sameeyay dhalinyaro badan oo astaan TV la shaqeyso dhalinyaro badan oo TV-gaas ka shaqeeyaan la kaashade warnimayo hal igey TV-ga waxaan rabaa inaan soo bandhigo waliba TV-ga aan amaano ma garatay sax ma ogi qarash la'aan ma jirta markaas TV-ga xoogaa ma ku daadsanay ya wali wadkii adani waxaa la lahay adi waa ma aqaan qofku waa la qofta ninka ragga lama yeeso weligaa ninka ragga lama yeeso yasma mee ka ahayd wariyaal ma u tagin baani wariyaal lama kulmo way soo wicin wariyaasha meesha kadib bay soo wicin markay hadeertaan Sharma Boy ee dadkii bixiya shacabka markay ay bixiyeen ay soo wicin laakiin kor ana u baana ilaan ayay imaka siin awoobin imaka siin waxa waaye waa lixmi meesna alfeen umadu way wada ogaatay adamigu wada amaanay astaan TV alla ilays bay dalkeena keentay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan oo uga hadlaynay nolosha iyo fanka alfanaan Sharma Boy haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelkeena oo subscribe inoo saar